بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعن ونكسن داوديال waxaad ku soo dhawaataan xogihii ugu xasaasana inaga soo gaaray Soomaaliya oo aad kala socotaan bahda TV qodobada aan idin hayna waxa kamid noqonaya baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo muddo kordhin u sameeyay hay'adaha dawladda taliyii hore ee ciidanka booliiska gobolka Banaadir oo xilkii laga qaaday kadib markii uu faraha la galay arrimo siyaasadeed xubnaha mucaaradka oo war kulul ka soo saaray xilka qaadista lagu sameeyay Saadaq John sidoo kale waxaan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee kulanka baarlamaanka Soomaaliya maanta ay ku yeesheen xarunta Villa Hargeysa waxaan naga xusuusina xogaheena in aan diiradda ku saari doono maanta wararka la xiriira baarlamaanka Soomaaliya iyo xilka qaadista lagu sameeyay taliyii hore ee ciidanka booliiska gobolka Banaadir Saadaq John markale waqti wacan ayaan idin leeyahay saaxiibayaal ee ku soo dhawaada xogihii ugu xasaasana inaga soo gaaray Soomaaliya oo aad kala socotaan bahda TV isku soo noqod wanaagsan ayaan idin leeyahay haddii aan ku bilaabo guddoonka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa soo saaray sharci gaar ah oo jiheynaya doorashooyinka heer federaal waxaana uu shaaciyay in dalka laga qabanayo doorasho qof iyo cod ah muddo 2 sano gudaheed taas oo u muuqata muddo kordhin loo sameeyay hay'adaha dawladda federaalka Soomaaliya sharciga uu soo saaray gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu ka kooban yahay ilaa iyo 9 qodob oo qeexaya sida lagu hirgelinayo doorashada gudoonka ayaa ku dooday in sharcigan uu waafaqsan yahay qodobka 47 ee dastuurka oo siinaya golaha shacabka soo saaridda mashruuc gaar ah oo quseeya nidaamka doorashooyinka iyo xisbiyada sidoo kale gudoonka ayaa soo saaridda sharcigan u cuskaday qodobada 64 koowaad 72 iyo sidoo kale koobaad ee faraya doorasho qof iyo cod ah mid toos ah iyo mid qarsoodi intaba qoraalka shanaad ee sharcigan ayaa waxa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka lagu siiyay in doorasho ay markaasi ku qabtaan 2 sano gudahood taas oo macnaheedu yahay in muddo kordhin ay helayaan hay'adaha dawladda ee hadda jira guddoonka ayaa faray xukuumadda xilgaarsiinta in guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ay uga dambayso arrimaha la xiriira doorashooyinka heer federaal isla markaana gacan buuxda lagu siiyo meel marinta waajibaadkooda dastuuriga ah sida uu hadalka u dhigay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan sharcigan cusub ee maanta uu soo saaray baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli maalmihii ugu dambeeyay uu taagnaa shaki ku aadan in baarlamaanka Soomaaliya uu soo saari doono nidaam doorasho oo markaasi ka duwan midkii ay isku fahmi waayeen maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe kulanka baarlamaanka ee maanta ayaa waxaa dib u dhaca u keenay kadib markii taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir uu diiday in maanta uu furmo kulankaasi inkastoo markii dambe xilka laga qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa soo dhaweeyay sharciga gaarka ah ee golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay ka soo saareen jiheynta doorashooyinka heer federaal kadib markii qaar ka mid ah dawlad goboleedyadu ay curyaamiyeen heshiiskii 17 Sebtembar ee doorashooyinka dalka oo 16 Sebtembar 2020 uu ansixiyay baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweynaha ayaa tilmaamay in xukuumaddu ay qaadanayso doorka kaga aadan fulinta sharcigan ay ansixiyeen golaha shacabka oo dalka u jiheynaya doorasho toos ah dibna ay ugu soo celinayaan shacabka Soomaaliyeed xuquuqdooda dastuuriga ah ee ku aadan in ay doortaan hoggaanka ay ku aaminayaan talada iyo masiirka qaranka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay dhexda u xirtaan sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen fursadan taariikhiga ah ugana qayb qaadan lahaayeen geedi socodka siyaasadeed ee dalka sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa uga mahadceliyay saaxiibada Soomaaliya ee dadaalka la garab taagan sidii loo xoojin lahaa hannaanka dimuqraadiyadeed ee dalka oo marxalado kala duwan soo maray madaxweynaha ayaa adkeeyay in hay'adaha dawladda oo ka duulaya dastuurka dalka waajibaadka qaran ee wakiilka ka yihiin curfiga diblomaasiga iyo mabaadi'da caalamiga ah in ay aqbaleen farigelin shisheeye ee arrimaha masiiriga ah oo markaasi ay ugu horeyso doorashooyinka dalka oo ah arrimo ay markaasi u madax bannaan yihiin shacabka iyo dawladda federaalka Soomaaliya wararka baarlamaanka ayaan ku guda jirnay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo maanta gaaray xarunta Villa Hargeysa kuwaasi oo markaasi sheegay in ciidanka booliiska Soomaaliya ay ka celiyeen jidadka inta badan gala xarunta golaha shacabka taliyaha ciidanka booliiska gobolka Banaadir Saadaq Cumar Xasan Saadaq John ayaa goordhow waxa uu shaaciyay in taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed uu joojiyay
kulankii maanta ee baarlamaanka soomaaliya kaasi oo qorshaha uu ahaa in looga doodo mooshin ku aadan doorashooyinka qaran ee 2021 saadiq john ayaa sheegay in booliiska soomaaliyeed uu waajib qaran ka saaran yahay nabadgelyada guud iyo xasiloonida magaalada caasimadda ee muqdisho taliyaha booliiska qaybta guud ee gobolka banaadir ayaa sababta ugu weyn ee markaasi uu u joojiyey kulanka baarlamaanka ku sheegay si markaasi looga hortago in dalka la geliyo fawdo iyo qalalaase baarlamaanka soomaaliyeed waxaa maanta hakinay kulankii ay lahaayeen sidoo kale waxa uu tilmaamay in xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya looga baahan yahay in ay aadaan deegaanadooda iyo doorashooyin in markaasi ay qabtaan maadaama uu ka dhammaaday muddo xileedkooda saadiq john ayaa sidoo kale waxa uu xusay inaysan ogolaan doonin in la sameeyo muddo kororsi dalkan markaasi u horseeda dib u dhac hor leh iyo in markaasi dib loogu noqdo dagaallo sokeeye ugu dambeyn waxa uu fariin u diray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble isaga oo ka dalbaday inuu qaato doorkiisa ku aadan doorashooyinka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxaan ka codsanayaa ama aan u sheegayaa wadanka mas'uuliyadiisa inuu qaato si kastaba go'aankan ayaa ku soo aadaya iyadoo laga baqayay in baarlamaanka Soomaaliya uu ku dhawaaqo muddo kororsi loo sameeyo madaxweynaha iyo sidoo kale hay'adaha kale ee dawladda wararka baarlamaanka ayaan ku guda jirnaa iyo taliyaha ciidanka booliiska gobolka banaadir xilka qaadista lagu sameeyay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa gordhow xilka qaadis isna waxa uu ku sameeyay taliyaha qaybta guud ee gobolka banaadir ee booliiska Saadiq Umar Xasan Saadiq John oo saacado ka hor shaaciyay inuu joojiyo kulankii maanta ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya wareegto ka soo baxday xafiiska taliye Xijaar ayaa lagu sheegay in xilka taliyaha ciidanka booliiska gobolka banaadir loo magacaabay Farxaan Maxamed Aadan oo ku magac dheer Farxaan Qaroole kaasi oo loo dalacsiiyay gaashaan la sare Farxaan Qaroole ayaa horay u ahaa taliyaha ciidamada sida gaarka u tababaran ee Haramcad oo ka tirsan ciidamada booliiska Soomaaliyeed xilka qaadista Saadiq John ayaa timid kadib markii saacado markii uu shaaciyay in booliiska Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka banaadir uu joojiyay kulankii baarlamaanka oo qorshaha u ahaa in looga doodo mooshin ku aadan muranka hariye ee doorashooyinka arintan ugu dambeyn waxa ay tilmaamaysaa xaalad cakiran oo haatan markaasi dalka uu sii galayo gaar ahaan dhaqdhaqaaqa ka socda magaalada caasimadda ee muqdisho wararka la xiriira xilka qaadista ee Saadiq John ayaan ku guda jirnay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo war qoraal ah soo dhigay bartiisa gaarka ah ee Facebook ayaa waxa uu ka hadlay isbeddelka degdega ah ee lagu sameeyay hoggaanka taliska qaybta guud ee gobolka banaadir Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa ugu baaqay Farxaan Maxamed Aadan Farxaan Qaroole inuusan qaban xilka loo magacaabay ee taliyaha booliiska gobolka banaadir isaga oo ku tilmaamay in uu yahay xilkaasi xil gumaad sida uu hadalka u dhigay isbeddelka degdega ah ee lagu sameeyay taliska gobolka banaadir ayaa yimid kadib markii saacado markii uu shaaciyay Saadiq John uu markaasi uu joojiyay kulankii baarlamaanka oo qorshaha u ahaa in looga doodo mooshin ku aadan muranka hariye doorashooyinka dalka xaaladda soo korortay ayaa uga sii daraysa ismarwaaga taagan ee doorashooyinka 2021 iyo khilaafka siyaasadeed ee dalka ka jira ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu kulan isugu yeeray saraakiisha laamaha amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya kaasi oo lagu qabtay xafiiskiisa ra'iisul wasaare Roble ayaa taliyaasha uu la kulmay waxa uu ka dhageystay warbixino la xiriira xaaladda ammaan ee dalka iyo qorshahooda ku aadan sugidda amniga dalka afayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimow ayaa sheegay in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu saraakiisha kula dardaarmay sare u qaadida sugidda amniga dalka inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan afayeenka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in Roble uu saraakiishan kula dardaarmay in ay ka qayb qaataan u gurmashada dadka danta yar inta lagu guda jiro soonka sidoo kalena dadka wax heesta ayuu ka codsaday in ay dan yar tacaawiyaan kulankan ayaa yimid kadib markii saacadii la soo dhaafay ay soo ifbaxayeen in ay jiri karto muddo kordhin loo sameeyo hay'adaha dowladda federaalka Soomaaliya ee muddo xileedkooda uu dhamaaday waxaana la tuhmayaa in Roble uu markaasi kala hadlay arrimo la xiriira sidii ciidanka ay gacan uga geysan lahaayeen talaabooyinka sharci darrada ah ee la qorsheynayo ugu dambeynna wararka laga helayo gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in maanta ciidamada dowladda Soomaaliya ay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka Gamboole oo ka tirsan gobolkaasi oo hoostaga magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe
ciidamada xoogga dalka oo howlgal qorsheysan ka fuliyey islamarkaana dagaal culus ku qaaday xubno ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab ayaa waxa ay ka saareen deegaankaasi oo galbeed ka xiga jowhar. sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in iska hor imaadka labada dhinac uu ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. ila dadka deegaanka ah ayaa bahda TV waxay u xaqiijiyeen in ciidamada ay haatan dhaqdhaqaaqyo ka wadaan Gamboole islamarkaasna ay ka sameysteen fariisin. xaaladda ayaa haatan aad u kacsan, waxaana duleedka magaalada jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle laga dareemaya dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay markaasi isaga soo horjeedaan xubno ka tirsan al-shabaab iyo ciidamada dowladda ee halkaas la wareegay. si kastaba ma ahan markii ugu horeysay oo ciidamada xoogga dalka ay la wareegaan deegaankan oo ah mid istaraatiiji ah, iyagoo dhowr jeer markaasi isaga baxay oo halkaasina uga baxay xeelad military sida saraakiisha militariga Soomaaliya ay sheegaan. guud ahaan waa naga taa wararkii iyo xogihii ugu dambeeyay ee naga soo gaaray Soomaaliya oo aad kala socoteen bahda TV.